madaxweynaha deegaanka Soomaalida ayaa waaran soo qabasho ah u jaray suldaanka beesha Arab ee dowlad deegaanka Soomaalida Suldaan Rashiid oo Maxamed Rashiid Bishaaro oo isaga iyo odayaal kale oo beeshiisa ah ay ku sugan yihiin magaalada Addis Ababa. Suldaanka ayaa dhawaan u gudbiyay xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya sirdoonka qaranka iyo xafiisyada xuquuqda aadanaha cadaymo isugu jira sawirro muuqaallo iyo magacyada dadkii ay ciidanka deegaanka Soomaalida ku laayeen Dacwaley. Madaxweyne Mustafa ayaa markii uu ogaaday in Suldaan Rashiid iyo odayaasha kale ee beesha Arab inay gudbiyeen dacwad la xidhiidha wixii ka dhacay Dacwaley, waxaa waaran u jaray suldaanka iyo dhowr qof oo kale oo odayaasha Arab ah. Suldaan Rashiid ayaa u xaqiijiyay Karaamada TV in uu maqlay waaranka loo jaray iyo qorshaha halista ah ee ay xukuumadda deegaanka Soomaalidu u maleegayso, sida ilo xog ogaal ah ay u xaqiijiyeen Karaamada TV abbaaro 5 galabnimo ee maanta. ciidamo laga diray Jigjiga iyo kuwa sirdoon ah oo u shaqeeya Mustafa ayaa galabtay tagay hoteelka ay degan yihiin Suldaan Rashiid iyo odayaasha Arab, waxaanay doonayeen in ay soo afduubtaan dhammaantood oo ay geeyaan Jigjiga. hase yeeshee qorshaha ayaa ka fashilmay markii ay odayaashu ogaadeen shirqoolka lala damacsan yahay iyaga oo la xidhiidhay laamaha amniga ee federaalka. warka uu Karaamada TV helay ayaa intaa ku daray in madaxweynuhu uu lacago badan ku bixinayo sidii loogu soo gacan gelin lahaa odayaasha Arab. sababta uu madaxweyne Mustafa arrintan u sameynaya ayaa lagu sheegay inay tahay inuu dareemayo cadaadis kaga imaanaya dowladda federaalka Itoobiya, taas oo keeni karaysa in xilka laga qaado, wuxuuna qaatay go'aan ah in uu isku dilo shacabka walaalaha ah ee deegaanka wada degan oo uu qaab qabiil isugu dhufanayo. madaxweynaha iyo xubnaha ugu dhow xukuumaddiisa ee ay ka soo wada jeedaan gobolka Jarar ayaa la sheegay in ay isku qanciyeen in haddii ay xidhaan Suldaan Rashiid in ay gadoodi doonaan shacabka ay ka soo jeedaan odayaashu, kadibna uu halkaasi ka bilaabmi karo isku dhac iyo dagaal. madaxweyne Mustafa ayaa la sheegay in uu doonayo in haddii uu xukunka ka dego in uu ka tago eel aan hadhin iyo isku dhac qabaa'il. hase yeeshee laamaha amniga ee dowladda federaalka ayaa la xaqiijiyay in ay la socdaan oo ay og yihiin falalka iyo qorshayaasha halista ah ee uu ku howlan yahay madaxweyne Mustafa. si kastaba ha ahaatee, waarankow madaxweyne Mustafa u jaray Suldaan Rashiid iyadoo aan weli la dayin nabarrada dhacdooyinkii xanuunka badnaa ee ka dhacay Dacwaley, halkaas oo ay ku dhinteen boqolaal qof oo isugu jira shacab iyo ciidan.